Welcome back akhyaarta kusoo dhawaada qeybtii labaad ee Programming with Python. Qofka marka uu wax programinayo waxa ugu horeeya uu sameeyo waa in uu shaashada wax kusoo daawaco sida hello Sandbox ama hello world oo kaleeto. Waxa uu soo qoray syntax error, sidaa awgeed waxaa qasab ah inaad ogaato in Python ay leedahay nidaam gaar ah oo loo qoro. Marka haddii aan u baahanahay in shaashada wax lagu soo daawaco, waa inaan qoraa print kadibna brackets oo aan dhex gelin doono quotation si aan wax ugu qoro qoraal caadi ah. Waxaan soo koobiyeyn doonaa qoraalkii aan ul qoray, quotationka dhexdiisa ayaan paste ku dhigi doonaa, kadibna enter ayaan ku dhufan doonaa. Waxaa ii soo saaray hello Sandbox oo buluug ah, halka markii hore syntax error oo guduud ii soo saaray. Haddana waxaan isku dayi doonaa inaan soo daawaco number, tusaale oo kaleeto number 5 aan tusaale usoo qaadanaynaa, number 5 oo ii soo daawacay. Haddana waxaan rabaa inaan soo daawaco tiro fara badan oo tusaale oo kaleeto 100 milyan oo ii soo daawacay. Marka xigtana waxaan isku dayi doonaa inaan soo daawaco number jajab ah oo leh dhibic, tusaale oo kaleeto 100.0 oo kaleeto inaan soo daawaco isku dayaa. Marka aan geliyay enter ayaan dhahay oo uu ii soo daawacay. Intaas markaan sameeyay kadib waxaan isku dayi doonaa in aan laba number isku daro, kadibna isku darkoodii aan soo daawaco. Tusaale oo kaleeto waxaan isku dari doonaa 1 iyo 3 oo kaleeto. Natiijadaas uu soo bandhigay waa aragtay. Haddana waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo calculations fara badan, sida inaan 1 ku daro 3 kusii daro 2, haddana ka jaro 4, ku dhufto 3 ama 5 aan u qaybiyo numberkaan rabo adii 6 oo kaleeto. Natiijada wuu soo saaray automatically. Qaybteeni labaad intaas ayay ku eg tahay. Waa inoo qaybta xigta.